madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland saaxiibadayda golaha wasiirada taliyaha ciidanka booliska dhammaan martasharafta shaqaalaha wasaaradda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo horena xusbiga markii la ahaa deegaanka u ballan qaaday inuu ka shaqayn doono intan xukuumadda aynu joognayna mar walba nala garab taagan taageero talo iyo tusaale nagala soo qayb galayna kal hore waa kaa geedkii uu beerayey oo weynaaday tanna inala jooga waxaa kalaan u mahadnaqayaa ciidanka booliska ee halkan maanta inagu marti qaaday dhirta badan ee 40 gaadhaysana beeray horena qaar hore u beeray ciidanka boolisku ma aha uun dhirbeeris nagalama shaqeeyo ciidanka boolisku wuxuu nagala shaqeeyaa wasaaradda howlaheeda oo dhan waa gacanta xoogga iyaga weeye askarta boolisku howlgallada wasaaradda waanay ku dhimataa waanay ku dhaawacantaa marka way ka weyn tahay doorkoodu uu ka weyn yahay dhir ay beereen oo keliya waana ugu mahadnaqay waxaan u mahadnaqayaa oo kale dowladda hoose ee Hargeysa oo iyana mar kasta nala garab taagan wada shaqayn maantana munaasabadan qaranka ee dhirbeerista 40,000 oo geed ku beeraysa magaalada iyo deegaamadeeda waxaan halkan u marinayaa mahadnaq dhammaan wasaaradda howlwadeennada gobollada fadhasaabada dowladaha hoose haddaan hadalka idiin soo koobo waa iga raalli ahaanaysaa waa goor dambe madaxweynihina waa iga dambeeyaa maanta waxaa laga hadlayaa waa maalintii qaranka marka ugu horeysa waa maalintii adduunka ee dhirta la beerayey faa'iidada dhirta kama hadlayno maanta waynu ognahay waa nolosheenni innaguna waxaynu u qaadanay 15 abriil maalinta qaranka ee dhirbeerista waxaa noo muuqday inay dadkeennu ka qayb gelayaan dhirbeerista markaannu eegno codsiyada noo imanaya iyo kuwii hore la isu eego taasina waa mahad ilaahay iyo aynu mahadaynu dadkeennu u mahadnaqayno mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin qaran oo xambaarsan fariin cad oo ah ilaalinta deegaanku waa mas'uuliyad wadareed wasaarad kaliya wax kama qaban karto xukuumad kaliya wax kama qaban karto dowladda oo dhan iyo shacabkeeda oo iskaashadaa wax ka qabanaya waxaan si kooban idinla wadaagayaa waxqabad kooban oo badideedii uu madaxweynuhu shalayba sheegay annaan idinku celinayaa waxaa la dhammaystiray sanadkan istiraatiijiyadda wasaaradda iyo qorshaheeda 5 sannadood ee soo socda oo si loola jaan qaado qorshaha qaranka tiirarkiisa oo golaha wasiirada hore loogu dhammaystiray wasaaradda qorshayntuna ay soo ururisay inay wasaaraddu waliba qaybta ku aadan ay ka samayso qorshihii ay ku shaqayn lahayd iyo istiraatiijiyaddii taas waa la fuliyey waxaa si rasmiya loo aasaasay guddi xeerku qorayey in badan laakiin aan la hirgelin xeerka nambarkiisu yahay 79 2018 ama 2018 mar dambe la cusboonaysiiyey horena u jiray kuwaasoo hagaya siyaasadda iyo tayada deegaanka oo ka kooban 9 wasiir guddoomiyaha tayada hay'adda dhowrista tayada iyo 2 xildhibaan oo midna ka socdo golaha wakiilada
midna guurtida guddidaasoo hagaysa siyaasadda deegaanka iyo heerarkeeda kala duwan guddidaa waanu hirgelinay wasiiraduna waa ka soo qayb galeen waanaanu bilownay aad baana ay ugu mahadsan yihin waxaa kaloo la aasaasay guddi agaasimayaal guuda oo isna xeerku sheegayo oo standardka environmentka ama deegaanka iyaguna abuuraya oo u soo gudbinaya guddidan kale oo la shaqaynaya iyaguna waa ku mahadsan yihin guddidu waxay ka kooban tahay sidaan sheegay 9 wasiir dhowrista tayada xubin guddoomiyaheeda iyo 2 xubnood waxa kale oo la soo saaray ama la beeray 616,711 geed oo ku salaysan amarkii madaxweynuhu bixiyey ballanqaadkiisii xusbiga iyo xukuumadda ee ahaa in 3 milyan oo geed la beero 5 sannadood ee xukuumadda ay xilka hore hayso abaar baa jirtay intaa waa ka badan lahayd laakiin waa ogeedeen duruufo abaareed baa jiray wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa inay sanadkanna ka kordhiso maantadan waxa diyaar ah oo la beeri doonaa waddanka 400,000 oo geed wasaaraddu waxay maamushaa maanta waaxda dhirta iyo unbaa laga hadlayaa iyo seerayaasha wasaaraddu waxay maamushaa 1,100 kiiloomitir oo seera daaqsimeeda iyo 583 kiiloomitir square ah oo seera kaymeeda kuwaasoo muhiim u ah ilaalinta deegaanka iyo nolosha bulshada guud ahaan waxaanu si toos ah u daryeelaynaa tiro badan oo duurjooga oo ka kooban ugaadh iyo gaar ahaan harimacaddo 130 harimacad waa meesha keliya ee adduunka tiro intaa leegoo harimacadda lagu hayo umaynaan soo qaadan harimacaddada ama uma hayno inaynu dalxiis ahaan ka dhignee waxaanu ka reebnay oo bilayskuna nala qabtay dad tahriibinaya oo u dhoofinaya dibadaha dalka gaar ahaan gacanka carbeed mas-uuliyadda 130 harimacadoo keliya kharashkooda dawayntooda hayntooda ilaalintooda waxay naga caawisaa hay'adda la yidhaha CCF waxay ku bixiyaan hilibka keliya ee loo qalo lacag $50,000 gaadhisa bishii daryeelka kalena hadalkiisa daa iyo abaabulka kale hay-addana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kor loo qaaday awoodda shaqaalaha oo la tababaray in ka badan 400 oo shaqaale ah taasoo sare u qaaday kartida farsamo iyo maamulka wasaaradda waxaa la qabtay shirweynaha qaran ee isbeddelka cimilada iyo deegaanka iyo kulamo joogto ah oo 3 biloodla ah oo xoojinaya wada shaqaynta daneeyayaasha waxaa la kormeeray 15 goobood oo macdan qodis ay ka socoto si loo yareeyo khataraha deegaanka ee ka dhalan kara loona hubiyo in lagu shaqaynayo sharcigii loogu talagalay waxaa gobollada dalka laga sameeyey olole iyo wacyigelino ballaadhan oo deegaanka lagu ilaalinayo sidaas oo kale in ka badan 4,000 oo arday ayaa iyaguna lagu wacyigeliyey saamaynta isbeddelka cimilada iyo ka warhaynta deegaanka wasaaradda tacliintana waa ugu mahadnaqaynaa midhka oo wada shaqaynaanu leenahay waxaa la qaybiyey 3,000 oo girgire oo nooca dhuxusha marxiya ah si loo yareeyo xaalufka dhirta xukuumaddu waxa kale oo ay cashuur dhaaf siisaa
sharikadaha keena gaasta wax lagu karsado si dhirta loo ilaaliyo halkii dhuxusha laga shidi lahaa gaasta loo isticmaalo waxaa la hirgeliyey qorshayaal waaweyn oo dib loogu celinayo deegaanka iyo dhulkii tayo xumaanta ku dhacday kuwaasoo la yaraynayo nabaad guurka waxaa la dhammaystiray shuruucda iyo siyaasadaha iyo hagayaasha wasaaradda gaar ahaan waxaa xoog wax looga qabtay oo iminkana la yaalla garyaqaanka guud xeerka duurjoogta oo 71 qodob markii lagu daray noqdayba inuu cusboonaaday oo xeer cusub noqon doona iyadoo la sameeyey dib u eegis kaabis iyo diyaarinta kuwa cusub caqabadaha wasaaradda hortaagan iyo howlaheeda waa waxay qaranka la wadaagto qaranka iyo itaalkiisa ay la wadaagto waxaa markasta la isku dayayaa in laga gudbo iyadoon la caban lana cataabin hawshaa la qabto mudane madaxweyne waxaa ka mid ah waxyaabaha marmar is-hortaaga wasaaradda howlaheeda waa khataraha masiibooyinka deegaanka ee ama dabiiciga ama dadsameeyga taasina waa waxay u xil saaran tahay inay ka howlgasho jihada iyo mustaqbalka ee wasaaraddu qaadaysa waxa weeye dhammaystirka 3 milyan ee geed ee lagu xukuumadda iyo madaxweynuhu ku ballan qaaday in la dhammaystiro dardargelinta siyaasadda iyo shuruucda deegaanka gaar ahaan kuwa macdanta oo khatar weyn ku haya siday hadda u socdaan deegaanka xoojinta iyo iskaashiga caalamiga awoodsiinta bulshada iyadoo la dhisayo bulsho u adkaysan kartaa saamaynta isbeddelka cimilada waxaan halkan maanta ku bishaaraynayaa aan madaxweynaha iyo qarankaba ugu bishaaraynayaa inay wasaaraddu jiha cusub u dhaqaaqday oo ah dhirta ay beerayso inay u doonato marka ay beerto inay u doonato caalamka lacagtii ay ku helaysay kaarbankii ay dhirtaasi nuugtay oo ay deegaanka wax u qabatay inaynu lacag ku doonano oo dhaqaalaha deegaanka la yidhaha environment economy waxay diyaarisay wasaaraddu hab maamuuskii ama guidelineskii lagu hagayey arrintaa waxa aanu hadda kala shaqaynaynaa hay-adda la yidhaha GT Global waxaan kala shaqaynaynaa 10 milyan oo geed inaynu ku beerno 10 milyan ee geed waxaa mid walba la gelin doonaa 10 milyan oo geed oo dheeraad ku ah 3 milyan waxaa mid walba lagu rakibi doonaa marka dhulka lagu taago chip electronic isna la gelin doonaa waxaa loo samayn doonaa application lagu maamulo geedkaasi intuu nool yahay koritaankiisa iyo kaarbanka uu nuugay applicationkaasaa xisaabin doona taas baynu markaa innaguna ku lacag doonan doonaa xisaabinta kaarbanka credit halka geed sanadkii wuxuu nuugayaa 20 kiilo oo kaarbana 13 milyan waxay nuugi doonaan 260 oo kiilo gram oo ay credit ku doonan doonaan halka kilogram waa $8 اللهم صل على محمد baa xisaabta lagu dari jiray marka 260 $8 lagu dhufto 2 milyan iyo 80 ayay sanadkii oo dollar bay noqonaysaa xisaabtaas oo iminka inaga maqan waynu raadsanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxa kale aynu samaynay airportka iyo dekedda shirkad caalamiya ayaa maal gelin doonta
qandaraas baynu ku siinay inay kaarbanka diyaaradaha iyo maraakiibtu ay ku dikhowga ay ku sameeyaan hawadeen inay qabtaan xisaabiyaan dabeedna ganaaxa ay caalamka inooga soo qaadaan aynu ku leenahay diyaaradaha iyo dowladihii lahaa iyo maraakiibta hawshaas oo dhammi markay isku duba dhacdo wasaaraddu waxay ka mid noqonaysaa wasaaradaha dhiggeeda bay ka qayb gelaysaa insha allahu dal la ictiraafina waynu nahay waxaynu ka faa'iidaysanay imikaba waxay ku soo dhiiradeen shirkadahani oo ay ka qayb gelayaan inay creditka ay noogu doonaan hawlaha waa ictiraafkaynu helay waa soo dhiirigeliyey oo ay noo sheegeen